وانجعل غيد غشاديسي دوحي نفتيدي وقلبي. degmadani waa Daarimi waa degmo fac weyn oo ay ku suntan yihiin sooyaal taariikheed oo badan. taariikhdu waa December 2025 xaflad si heer sare loo soo agaasimay oo lagu xusayay magacaabista Daarimi ee noqotay degmo cusub oo ka tirsan deegaanka Soomaalida ayaa ay isugu yimaadeen madaxda heer deegaan iyo odayaal dhaqameedka si qoto dheerna waxaa loogu xusay taariikhda Soomaalida tan islaamka iyo horumarka guud ee ka hana qaaday dowlad deegaanka Soomaalida. Daarimi oo ah meel istiraatiijiyada oo isku xidha Harar iyo Saylac ayaa marar badan taariikh ahaan u ahayd marin dhaqan dhaqaale oo isku xidha bulshada iyo goob ay ka dhaceen dhacdooyin waaweyn qarniyadii hore. xafladda lagu daafuray Daarimi oo ka mid ah 8 degmo ee cusub ayaa waxaa si cad loo adkeeyay doorka muhiimka ah ee degmadaasi ay ku leedahay nabadda, horumarka, maamul wanaagga iyo mideynta bulshada dowlad deegaanka Soomaalida. Inta badan hadalladu waxay xoogga saareen sidii deegaanka loogu ballaadhin lahaa adeegyada bulshada, maalgashiga, kaabayaasha dhaqaalaha iyo nidaamyada maamulka casriga ah. Hobad oo ah degmo hoosaad ka tirsan degmada Daarimi ayuu ku dhashay Imaam Axmed Guri. waxaa sidaa oranaya aqoonyahan Maxamed Xasan Darbad isagoo ka hadlay xafladani ayuu ku sheegay Daarimi in ay ku suntan tahay taariikh dheer isla markaana qaab dhismeedka cusub ee degmada ay muhiim u tahay horumarka iyo adeeg bixinta bulshada Daarimi. marka ugu horeysa Daarimi maxay ka dhigan tahay asal ahaan xagee ka timid waxay ahayd si kooban Daarimi intaas kadib goobtan aan maanta joognaa waa Daarimi marka ugu horeysa Daarimi maxay ka dhigan tahay asal ahaan xagee ka timid waxay ahayd si kooban Daarimi ayuu magacu ahaa oo loo bedelay Daarimi waa goob aan dhaxan ahayn waa goob aan kulayl ahayn xilligii iyadoo isbedelka cimiladu isbedbedelayo xilligii magaca la bixiyay qabowna ma ahayn kulaylna ma ahayn ee markii hore ku soo dhawaada waan idin leeyahay Daarimi oo aad maanta joogtaan. inta kadib Daarimi waxa ka mid ah santaradeeda goobtii uu ku dhashay Imaam Axmed Guri oo ah Hobad oo meel waxoogaa dhowr kiiloomitir inoo jirta inay goob taariikhi tahay taasaa ku tusaysa Hobad haddii aad akhrideen buugga Futuuxul Xabash waa meel dhowr kiiloomitir oo keliya halkan inooga jirta sida ku xusan Futuuxul Xabash sida ku xusan isla buugga waxa uu tilmaamayaa meel aan ka fogeyn Harar waxay u jirtay meel farasku uu hal maalin ka socdo waa meel yacni qiyaastii marka afka luqadda aan wada fahmayna lagu hadlo 35 ilaa 50 kiiloomitir waqooyi bari kaga beegan oo Soomaalidu ay degto waa sida uu dhigayo Futuuxul Xabash waa Futuuxul Xabash kan ka hadlaynaa waa buugga ka sheekeeyay saldanadii islaamka ahayd ee ugu weyneyd bariga Afrika oo dhan waxana laga yaabaa in badan oo idin kamidii inay buuggaas isagoo af Soomaaliya isagoo af Ingiriisiya isagoo Carabiya isagoo Faransiisa baad akhrideen waxaad ka akhriyi kartaan abaandulayaashii ugu horeeyay ee ciidanka ku deeqay wuxuu ka tegay Daarimi abaandula Mataan isagoo wata 5,000 oo ciidana oo fardoolay iyo lugalay isugu jira inay duulaanka ka qayb galaan. dhanka kale Daarimi waxay ahayd xaruntii ganacsi ee soo jirtay tan iyo xilligii ugu firfircoonayna waxa la tilmaamaa inay ahayd xagga ganacsiga 1875 ilaa 85 sida ay dhigayaan
qoraalada masaaridu ay ka sameeyeen xilligii ay xukumayeen magaalada Harar. haddaba muhiimadda ganacsi iyo istiraatiijiyadda juqraafiyeed ee Daarimi ay leedahay waa midda keentay in Talyaanigii iyo boqortooyada Ingiriisku ay heshiis ku galaan laga bilaabo Daarimi ilaa laga gaadhayo xuduudda kala qaybisa oo xilliga ay dhigaysay Daarimi inay ka tirsan tahay boqortooyada Ingiriiska ama juqraafiyadii loo yaqaanay British Somaliland. Daarimi waxay mar kale shiiqday markii ciidamadii Menelik ay qabsadeen dhulka Soomaalida iyo guud ahaan bariga Itoobiya bishii January sanadkii 1887 waana dagaalka loo yaqaano dagaalkii Jalanqa ka dhacay ayaa lagu qabsaday dhulkan. Daarimi waxay ku abtirsantaa saldanad fac weyn oo hortayda ay ka muuqdaan oo tirsanaysa in ka badan 600 oo sannadood ugu yaraan 20 garaad oo garaadada beeshan ama deegaanka ka soo jeedana inta ugu badan waxa lagu caleema saaray isla deegaanka degmada Daarimi. ugu dambayn Daarimi iyo guud ahaan dhulka Soomaalida ee geeska Afrika waxa ku duugan markhaatiyaal taariikheed oo u baahan cilmi baadhis qoto dheer ama waxa afka qalaad lagu yiraahdo archaeological study la sameeyo oo darsa magaalooyinkii aasmay iyo raadadkii ay ka tageen ilbaxnimooyinkii hore ee qadiimka ahaa oo xilli caan ka ahaa guud ahaan gobolka geeska Afrika. waxaan tusaale u soo qaadan karnaa halkan waxa ku duugan masaajido iyo magaalooyin badan oo in ka yar 3 kiiloomitir noo jira. guud ahaan masaajidadana waxaad arkaysaa habka iyo farsamada loo dhisay inay ahayd mid ka turjumaysay taariikhdii islaamiga ahaa ee gobolkan soo maray. ugu dambayn waxaan mar kale ku boorinayaa madaxda iyo mas'uuliyiinta dawladda deegaanka Soomaalida ee halkan fadhiya iyo jiilka soo korayaba in dhulkeena dalkeena iyo deegaankeenna ay ka jiraan boqolaal iyo kumanaan goobood oo u baahan in lagu sameeyo cilmi baadhis xeel dheer oo ka markhaati kacaysa taariikh fac weyn ilbaxnimo soo jireena oo weli raadkeedii u muuqdo. salaamu calaykum. duxiyo naftaydiyo qalbiga waa ku dhiiryahay sidii kubadkan dhalay oo kala dabu jelaystaan barwaqada dhextaaliyo. qodobka ugu iftiinka badan wuxuu ahaa ka qaybgalka mas'uuliyiinta iyo hadal jeedintooda waxaana ka mid ahayd mas'uuliyiintii ka soo qaybgalay Marwo Xaliimo Xasan wasiiradda xafiiska haweenka ahna xubin ka tirsan golaha sare ee maamulka dawlad deegaanka Soomaalida. waa degmadii wax soo saarka waa degmadii macdanta badani taalay waa degmo saynu arkayno Ilaahay ku manaystay quruxda dabiiciga iyo buuraha huwan. waa degmo ilbaxnimo soo jireena lahayd. waa degmo dawladnimada iyo ismaamulka degmooyinkii iyo deegaanadii laga soo gaadhay ahayd. xubno kale oo isugu jira ayaguna golo wasiiro odayaal dhaqameed iyo qaybaha kala duwan ee bulshada iyadoo lagu saleeyay waxyaabihii ka dhacay xafladda. madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar ayaa waxa uu ku mutaystay bogaadin buuxda maadaama uu ku adkaystay istiraatiijiyad maamul oo gaarsiisay adeegyada dawladeed meelaha fogfog iyo dadyowga miyiga. tallaabadani waa mid lagu tilmaami karo horumar muuqda oo mudan in lagu taageero oo la raaco. waxaana madashan ka muuqday farxad iyo bogaysiin siyaasadeed oo ku saabsan doorka maamulka deegaanka ee horseeday hirgelinta degmadan cusub. mas'uuliyiintu waxay carabka ku adkeeyeen muhiimadda nabadda, daris wanaagga iyo ka qayb qaadayaasha bulshada ee dhismaha adeegyada cusub ee degmada laga hirgelinayo. waa degmooyinka
ugu wax soo saarka badan dadkuna ay dhaqan u leeyihiin in ay ku xisaabtamaan waxa iyagu la soo baxaan waa dad ku caana taariikhdaasna horeyna waa loo sheegay waana mid lagu yaqaano dhinaca halganka ma tilmaami karo degmadeeni intay soo martay intii la tilmaamay iyo in badan oo aan la soo koobi karin ayay leedahay runtii waxaan marka hore iyo mar dambe iyo mar saddexaad buu mahadnaqiyaa golaha kaabineedka ee ansixiyey degmadan xukuumadda iyo xisbiga uu ugu horeeyo madaxweynuhu oo runtii aan si khaasa ugu mahadnaqiyo madaxweynaha waa meelaha sida khaaska uu ugu faraxsanaa uu ku dhiiranayay uu soo dhigay daarimi baa kow ka ahayd bilowgii ka hor waad ogeedeen baahida loo qabay sida khaaska uu ugu damqanayay qurbajoogtana waxaan ka rabnaa nin walba inuu ballan qaado kuwana daawan doona iyo kuwa halkan joogaba siday u maalgashan lahaayeen degmada daarimi waxay muujinaysaa in Soomaalidu ay leedahay taariikh fac weyn oo ay nigeedu ku iman aas-aaskii dalkan meel lafdhabar u ah ilbaxnimadii saylac iyo herar xidhiidhin jirtay inay tahay waxay kuu muujinaysaa Soomaalidu inay muddo dheer qayb ka ahayd dalkan iyo qaab dhismeedkiisa markaa taas in dadka Soomaalidu aynan ahayn xoolo dhaqato kaliya dad saldanad guun ah leh oo dalkan mudnaantiisa in la siiyo wax laga qoro ay mudan tahay weeye taas farxad bay noo tahay run ahaantii aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan kasoo qayb galo xafladan anigoo ku matalaya xafiiska madaxweynaha aad iyo aad bay farxad iigu tahay gaar ahaan dhulka aad ka soo shaqayn jirtay ee xaalado kala duwan aad ku soo martay marka aad timaado isagii oo wax u soo kordheen farxad gooniya saameyn gooniha ayay kugu yeelanaysaa taa marka ka imaado laakiin sharaf waxaa ugu filan 36 imaam ee soo xukumi jirtay harar qaybta ugu fara badan ee Soomaaliya ku metelaysa inay ka soo jeedaan deegaanka intaasaa sharaf ugu filan adnaq ballaaran soo jeedinaya xukuumadda deegaanka Soomaalida oo ugu horeeya madaxweynaha deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar go'aankii geesinimada lahaa ee la qaatay kaasoo lagu ilaalinayo midnimada iyo dadka deegaanka iyo guud ahaan kan dalkeena Itoobiya taas oo maanta ay tusaale cad u tahay in aan u dabaaldegayno xarun muhiim u ah ilaalada nabadgelyada deegaanka Soomaalida ugu dambeyn bulshada reer Daarimi ayaa loo diray baaq ku saabsan midnimada iyo ilaalinta amniga halka qurba joogta iyo ganacsatadana lagu dhiirigeliyay inay ka qayb qaataan maalgelinta iyo horumarinta degmada si loo xaqiijiyo adeegyada muuqda oo waara oo laga dheehan karo jiilasha soo socda reer Daarimi waxa taariikh u ah taariikhda Soomaalidu way ku yartahay waa ceel yar laakiin taariikhda aad ku suntantii waa taariikh islaam oo dalkan islaam baa laga difaacay dagaalkii salabiyiinta laga difaacay oo weedeen uma dhiman magac yar oo hoose oo muslina oo jilib yar oo muslimiin oo Soomaali la yiraahdo waxay u dhinteen diinta islaamka ee macaan inay kor u qaadaan marka taariikhda Maxamed Macallin baa la qabaa yaan meel hoose lagu soo koobin oo Soomaaliya taariikhda islaamka taariikhdani waxay taariikh u tahay taariikhda muslimiinta Itoobiya waxaan xukuumadda ugu mahad celinayaa sida quruxda badan ay ahmiyad gaar ah u siisay tixgelin gaar ah u siisay deegaanada xuduudaha ah runtii taana aad iyo aad baan ugu mahadsantihiin maadilay waxaan marka saddexaad u hambaliyeynayaa bulshaweynta u dhalatay degmada Daarimi iyo degmada Tulugule oo la runtii in badan baad soo samirteen in badan baad sugiseen in badan baad naawiliseen in badan baad u soo dhabar adeegteen waxaan idin leeyahay midhaheedii maanta aynu guranaynaa hambaliyo dilay degmadu waa dhul qaniyo khayraadka dihine dahabku ugu horeeyo duur joogtan ahliyo dunyadii xoolaha iyo mararka da'ayuu ilaahay isugu daray degmadu waa dhul qaniyo khayraadka dihine dahabku ugu horeeyo duur joogtan ahliyo dunyadii xoolaha
horeeyo duur joogta naadiyo dunyadii xoolaha iyo malabka da'ayuu ilaahay isugu daray nasiibkeena darariyo doobigeena loo cugay deganaana lagu dhamo doobigeena loo cugay deganaana lagu dhamo daacad lagu wadaagiyo deganaana lagu dhamo degmadu waa dhul qaniyo khayraadka dihine dahabku ugu horeeyo duur joogta naadiyo dunyadii xoolaha sadaqadinku dhaqantiyo maamul dagaheeyo taana waxaa daliilu ah ragkan dowladnimadiyo dhismayaasha duuge daarimi degmo cusub oo taariikh fac weyn leh kana guuraysa xasuus hore una socota mustaqbal horumar leh ragkan dowladnimadiyo dhismayaasha duuge darbigani ka soo